warqadaad waxay ku saabsaneed wararkii ka soo baxay hadallo dhexmaray dowladda federaalka Ethiopia iyo region ka mid ah Soomaaliya oo aragnay inay gibadhac badan ama wadajirka Soomaalida ama xornimada Soomaalida ama sharafta wadanka Soomaalida inay meel ugu dhacday marka taa anoo ah madaxda wadanka Kenya waxaan u aragnay taa inay keeni karto dhibaato fara badan oo regionka dhan u keeni karta burbur badan ay keeni karto sharaftina jiraanimadana meel ugu dhici karta xornimadii iyo aqoonsigii wadanka Soomaaliya calanka uu la lahayn ay meel ugu dhici karta marka taa inaan ka hor imaadno oo dhahna walaalkeen abi jid kala oo sharaf leh uu ku raadsan karaa inuu xiriir ama mid becshareed aan noqdo ama mid siyaasi aan noqdo ama mid fikrad kale uu leeyahay aan noqdo uu ku raadsan karaa wadamaha badda leh oo ama Ethiopia ama Djibouti aan noqoto ama Eritrea aan noqoto ama Sudan aan noqoto ama Kenya aan noqoto marka taa waxaan u aragnay mid oo sharafta dhaawici qaanuunka adduunka ka jirana qayb ugu dhacaysa marka wadamahan adduunka waxaa ka jira dastuur ama nidaam heshiis lagu leeyahay waxaana xukuma dastuur la soo saaray sanadka markuu ahay 1961 oo la dhahaa Vienna Convention waxyaalaha wadamaha xiriirkooda u dhaxeeya dastuurkaas baa xukuma waa laga aqoonsiyaa tan kale waxaa jirta calanka United Nations Afrikaanka dhexdiisana waxaa jiraan AU regionkan oo Horn of Africa waxaa jira IGAD regionkan East Africana waxaa jira East African Community marka qayb kastaba nidaam loo maray leedahay marka anaka waxaan ka xunaa waxa weeyaan history Afrikaanka ama wadamaha dhan adduunka ka jira wadan kastaba taariikh buu leeyahay taariikhda Soomaaliya taariikhda Ethiopia taariikhda Kenya taariikhda wadamaha dhan oo jiraanka waa mid la garanayo xuduudka jira iyo taariikhda waa mid caan ah waa mid la wada fahansan yahay waa mid qolo kastaba inay u hoggaansanaato la doonayo marka hadii maanta dhacda wadan xur ah xurnimadiisa su'aal la geliyo oo arrimo kale oo gudaha gacanta lala galo wadan kastaba boog buu qabaa marka tan anaka hadaan la yaabsana waxa weey ma dhici kartaa faragelin oo wadamaha ku xisaabsan oo loo mareynin qaanuunka u dhisnay xiriirka wadamaha marka taas aan u aragnay su'aal inay rabshano keeni karto ayna dhici karin tan kale waa ogsoonta sanadka dhamaanay arrimo kulul oo saddex baa ka soo baxay Soomaaliya ugu soo baxay tuu waxay in laga saaray hubka inay soo gataan Soomaaliya marfuuqi in laga saaray tan kale oo ayadoo dawladnimadii ay si wanaagsan u soo noqotay caalamka waxa laga gartay deemay lagu laa in laga saaro tan kale saddexaad ayadoo soo gaaminay madaxweynaha wadanka Kenya mudane Dr. William Samoei Ruto inay wadanka Soomaaliya ay soo galaan East African Community qaybahaas waa qaybo weyn oo tirtiraysa burburkii dhibaatadii ismagacunkii wixii ka dhacay Soomaaliya sidii dawladda siyaad baray u burburtay marka anako arkahayna fursad wanaagsan walaalyaalahayn oo jiraan la nahnay oo wax badan dhex maraan qabiil kale maaha marka waxaan u aragnay tii inay keenaysa waji cusub burbur cusub haddana looga tirigelin warmanka hadda fasax uu jira fasax dheer wuxuu soo noqon doonaa bisha labaad Ilaahay haduu yiraahdo marka fikradan waa fikrad Kenyaanka u dhaxaysa inaan la dhaxgalin arrimaha gudaha hoose wadamaha waana mid waqti kastaba foreign policy yani arrimaha foreign policy Kenya waxay ku dhisanta aan la dhaxgalin arrimaha wadamaha hoose hadii la dhaxgalayo waa in laga helo idin amaba oglaasho wadankaas ku xisaabsan marka dhibaatadeen soo marnay oo na arkahayno burburkeed in haddana si fudud nagu soo galiyo maxay Soomaaliya ay wax ku dhacaan anaka ay nagu dhaceen Ethiopia ay wax ku dhacaan anaka ay nagu dhaceen Kenya ay wax ku dhacaan anaka ay nagu dhaceen regionka dhan marka anako tiideed ka dalaan degayno waxaan u aragnay inaan wadanka u sheegno wadankan waa inala qabaan anaa ku dhigay inaan wadanka u sheegno oo dhahna arintaas Kenya ka hortagta waxaan codsanay madaxweynaha anaka inuu shir degdeg ah oo IGAD u yeero shir degdeg oo East Africa Community u yeero arrimahaas oo xad ka baxka Prime Minister Ethiopia uu suubina lagana hadlo lana joojiyo waxa weeye horta wadanka caalamka wuxuu ku dhisan yahay dastuurkaas xukuumadka waxa la isku imaado waa beeshimada United Nations yaa la isku imaado waliba United Nations Security Council Afrikaanku waxay isku imaadaan African Union marka waxaan filayaa hadii jidkan la furo hadii wax wadan oo jiraya malaha Mareykanka taariikh dheer buu leeyahay qayb Ingiriisku ka imaado qayb Talyaanka ka imaado qayb Portugal wadanka Ingiriiska sidaas waaye waxa ka jirta Scotland waxa ka jirta Ireland waxa ka jirta qayb kasta wadan kastaba taariikh buu leeyahay hadii tiilideed la furo marka waxaan leenahay hadii tii la furo wadan kastaba dhibaatada ideed ay ku soo socotaa marka waxaan filayaa weegaga soo socdo in adduunka caalamka dhan arintaas la dhigi doono abi waa ku fududaatay ka noqo